carruurta miska kaa dareeraan kala celin la'daha shanta tib soo socota fiirsa insha Allah kusii furayna fooda la inuu jiro la qalqaale maya u ooyi karaan adna waad xanaaq we come from a third world country. warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhawaada channelkeena kobcinta garaadka caruurta su'aalo waxaa badatay waalidiinta isoo weydiiyeen caruurtii samar waaye guriga joogaan laba isku feerooyaan marka maxaa sameynaa in caruurta isdirraan iska daba jiitamaan waxyaabo badan keeni kara laakiin laba shay oo ugu weyn waxaa waaye maseer waa kala maseersiin ama attention waxbay raadinayaan waalidkiisu raba inay soo jeediyaan say ku jeedinaa isdirraana marka maanta waxaan noo hayaa 5 shay insha Allah haddaa ku dhaqantiin na caawi doono number 2 guriga rule u samee oo waa isla murmi kartiin haddaa rabtiin ka soo qaad laakiin anay horteeda ma rabo dhagahayga wax isku dhacaan ma rabo qofna qofka kala gacanta ma ku dhufi kara gacantiisa ama dagaal ama hadoo dhibaato isu geysan karaan sooma laakiin afka hadii laga wada hadal dhib ma laha afka ka wada hadla xaggaas taga laakiin gacanta ka hadal ma jirto dad rulka guriga rulkiis iyo waxyaabo kale oo qof waalid walba wax uu jecel yahay ku darsan karta number 2 markay isdirraan ilaa 2 sano jiraan ama 3 sano jiraan wax soo loo qora xataa garanaynan warqad qallow dhibay xaggaas tag ii soo qor ha ii soo qorta maxaa isku dagaasheen marka dambana problemka sabab ku saxna dhibka dhacay dagaal ku dhacay sabab ku saxna way qoraan wax waa iska warqada soo 2 sano 3 sano ama 1 sano 2 sano yaa iska haday jiraan wax la iska walwalaaqay hadhow weydii maxaa waayana na kuwa weynkan ku sharax karaan laakiin yarka okay waxbay qoreen marka laakiin dhibka maxaa waa intay halkaas fadhiyaan iyo ka dhibkooda maxaa intay fadhiyaan warqadii buu qaadanayaan wax iska dawal walaaq adeegna faa'iidada maxaa ah ka nusat halkaas ka fariistaan number 3 markaas isdagaalaan isla markii inaad kala dhax gasho oo dhibaatada xalisa ha isku dayin waxa dhahdaa marka la ka wada hadlana caawa ka wada hadlana birita maalin ma waqtigaas markaas la jooga ka hadlana laakiin waxa dhahdaa markaas aan oo bal laakiin ha iloobin hadii maalin hadhow aan ka wada hadli doona sheekadan bal xagga daadad oo laakiin iloow sheeka soo noqnoqonay ha iloobin maskaxda ku qoro waqti hebela ka wada hadlana waqtigiina la fariiso maxaa dhacay maxaa jiro marna ha dhihin yaa gal daran yaa ka bikas ka soo qaata waxa lagu dhahaa asaga darbaaxin marka ana ma darbaaxin asaga warqad iga jaxin ana warqad ma ka jaxin asaga feer igu dhuftay ana feer ma ku dhufan marka ma dhamaanayso ha isku daalina biyaa gal daran sida ku xalina dhibkan wuu dhacay see ku xalina problemka meeshaas laba kan kalo shanaad oo ana ugu jeclahay baraweekan waa istagaalan guriga nadiifinaya adiga musqasho ardii soo dhaq dagaal adna jikada qoranta ka soo qaad adna meel heb alaabta dhaq adna kan kala maalinta isdagaalan waa faa'iideysa kooyan kuma jira la kuwa 5 iyo 4 iyo wixii ka sii weyn waa fursad fiican isdagaala marka saas samee insha Allah kan shanaad ana ka carruurteena na fiirsanayaan indhaheenu wahayaan ma iska warqabno laakiin daqiiqo bay noo fiirinayaan
markaan labada ruux waaweyn hooy aabba sheeg isla murmurmeyno hortoodaan ku murmin waa dad isla degan wax la muran waa iska dhici kara marka inaa gooni ayna arkin weligood inaan ku dadaalno waa sababta haddii anagna arkaan ish wayna fiirsanayaan dan iikana wixii isku dayaan marka guriga wuxuu noqonaa guri qajajajajajaja kanaas qabte marka kan shanaadna waa muhiim kan afraadna anaa jeclaa idin dhahay marka intaas idin sii rabo maanta tibkaas samarkan mar dhow dhammaan rabaa insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى وين؟ سبسكرايب لايك شير.